isna waxaan hees ciyaareeda oo jiib iyo jaan wax la yiraahdo lahaayeen iyagu oo hees ciyaareed baa la oran jiray waxna waa maansada marka ilaa 8 nooc bay ka dhigaan waa raggii hore hadda qoraaladan dambe xiliyadan dambe la qoro qaabo kala loo dhigaa marka waxa la dhahaa gabayga geeraarka masafada ambarigi hore jiifta la oran jiray jiiftada hadda wax kala loo yaqaana qayb kala sugan kamid loo yaqaana wagilada buraanburka shiribka guurowga waxyaalahaas oo dhan waa qaybihii maansada haddii marka aan ku horeeyo sida ay u suugaanowday maasooyinka noocaas oo kala sidii markii dambe suugaanta loogu adeegsaday hees hawleedaan xoog saaraya marka hees hawleeda ayaan xoog saaraya waxa kamid ah hees hawleeda suugaanowday waxa kamid ah tusaale ahaan badii haanta gabdhaha hadda jooga waxaan dhahaa raalli ahaada in caanaha la lulo waxay ahayd shaqay ahayd shaqadaasna waxa la isku dhaafin jiray waa in la ismaaweeliyaa waa loo heesaa nayaa dhigdhigo dhabar yar waagii dharaarawye sawmaba dhanaanaati waxay ka mid ahayd heesihii loo qaadi jiray waxa kamid ah oo kale caanowhiyow heedhe hantaydu waa ceebla caga toosan waa naag cas oo gaaban marka waxaa kamid ah maansooyinka xiliyadan dambe taa tusaalaha waxaa kamid ah tusaale ahaan hadraawi oo kale wuxuu leeyahay sirta nolosha maansada la yiraahdo maanse aad iyo aad cajiib ah Soomaalidan aad caan uga ah saaxiibkayow heedhe safar baan ka imi dheere marka hore salaan diiran marka xiga samow heedhe ha ka nixin dalagtayda sacafara marnaantayda suugaanta yaabkeeda marka kolkaad miisaanka saarto tabtaasay noqonaysaa saaxiibkayow heedhe safar baan ka imi dheere safar baan ka imi dheere marka hore salaan diiran marka xiga samow heedhe ha ka nixin dalagtayda sacafara marnaantayda suugaanta yaabkeeda waa sidaas way iskeenaysaa yani miisaan ahaan intaa waxaa kaga baxaya ahaantii aanu imaado caruurtii marka ciyaalka loo heesayo oo meelahan gabdhaha isku jeerayno gabdhaha xiliyadaana hadda waxaad dhegaysanayseen garaadlaawe ima geeyo gacal gooye ima geeyo waxaasaad dhegaysanayseen iminka annaguna gabadhaan ciyaalka u heesa aqoon ma geeno waxyaalo badan oo xujaa baa jira waxyaalo badan oo xujaa marka heesaha caruurta oo kale saleelada hooyadaaya sintay kugu haysataaye sidiidii kuma tiraa waa islaanta ilmaha iska haysto ilmuhu kolka ooyaba caanaysiisaa marka ooyaba caanay ku qabataa mid geesteeda taagneed baa aragtay waxay aragtay inaysan ilmuhan kaliya inuu baahan yahay in la sawaaliyo loo heeso intay ka qabatay bay u heestay markuu aamusay ayay dareensiinaysaa inay meesha wax ka khaldan yihiin saleelada hooyadaaya sintay kugu haysataaye sidiidii kuma tiraahdo waxaa ka mid ah islaantii waxaa la yidhi waxay dhashay 5 gabdhood oo isku xigta hooyada horena gabdhaha aad looma jeclayn marka 5 gabdhood oo isku xigtay dhashay ninkeedii waa lagu diray waxaa la yidhi nin naagtaan nooceeda oo kale gabdho dhalaa la yidhaahdaayo iyada iyo gabdhahay dhashaba xerada looga guuraa waana laga tagaa awrtaa laga kaxaystaa kama dambaysta isku aqbaqtinayaan marka ninkii wuu ka cududaartay wuxuu yidhi niyo bal ii kaadiya islaantii waa la xujiyey waxay da'da 6 haddaa gabar dhashana lagaa guur haddii aad wiil dhashana waa badbaadi wagarat marka ilaahay bay habeen iyo maalinba bariday inay wiil dhasho kolkii dambana da'dii ilaahay wiil buu uga dhigay wiilkii markuu 4 casho jiray ayay u heestay baa leeyahay marka 4 casho jiray ayay u heestay iyadoo sheegaysa farxadda ay ku farxaday iyo dadkii ku diri jiray ninkeeda halkay ka abaarayso kolkaad dhalato dhawaaqday dhadoy dhaxan bay iga dooshay dhulka ii wada iftiimay
dhirtaa ii wada magooshay dhurwaayaa iga dareeray wajida nooca marka sugaanta hadeer noocyada la adeegsado hadraawi oo kale aan soo qaadano awaltiris ma sida la yiraahdo awaltiris uba ku jirtaa qarsoone ka soo baxa iilka qaadka adduunka ragow markaalay abuurtiyo heega daawo awoodaha saaran daawo falaadkiyo alabadiisa ilaah samihiisa daawo udbaha iyo teedka daawo soo jeedid waa sidii tabtii way yani miisaanka way raacaysa xilliyada ka mid ah maasa jacayla oo anigu aan sameeyay baa jirtay oo iyaduna miisaanka wadatay urka ku jeelan jeerba afka kugu waalan goorba nafta ku ooman adiga hanka ku iilanaya garaaca wadnaha ugtiisa adun baa garan karo og ishaara ka soo baxaysa hobeeya wata iyaduna miisaankaas leedahay waxaan soo qaadanayaa nooca la yiraahdo cadaloolku ciyaalka ku ciyaari jiray habeenkiiba carruurtu ku ciyaari jiray marka iyagu waxay oran jireen maroodi cadhoole haddii colo sheego cadaada ku meyre hashi cusub waatan yani noocaas u dhacaysay maasooyinka nooca u dhacay hadda caanka ah waxaa ka mid ah abuu suufa oo cali oo kale waryaa Soomaali siyaasadi maaha sideedaba maaha aan soo jeedin sakaawiya jiibka sabankiya suuga faalsa wax maaya baroon salsalaya kaara si waalan saaradu daasha sara duminaya salal keenaya maroodi cadhool iyaduna waa nooca cadhool baa la yiraahdaa isaanan waqti badan u qaadan waa soo koobayaa waxa ka mid ah maydhaxda marmarka qaybta markaan suugaanta dumarka ku soo laabto de gabdhaha xilligan baa xasuustaa moogta maydhaxda yani markii maydhaxda la diiranayo ayaa haweenku maydhaxda diirayaan waxay oran jireen naalaago naalaangaloola naamayla diiran kula diiran maayo saas kale oran jiray marka iyaduna waa miisaan dhan oo jira oo abwaankii la oran jiray gaariye maxamed xaashi dhamac allahu naxariisto ayaa wuxuu iska lahaa maasan noocaas oo kale ah wuxuu maasada waxa la dhahaa kabacseeye taariikh dheer bayna leedahay cajiiba isagu wuxuu ka sheekeynayaa kabacseeye waa maaso wiil yar oo kabacseeye ah yani qoladan baalashka ayaa wuxuu arkayaa meel ugu imaanaya marka wuxuu leeyahay niyo waxay isagoo ag taagan oo baryaya ayaa ciidan u imaanaya wiilkii bay qaadanayaan wiilkii markay qaateen xogtii buu baarayaa marka waxa la leeyahay muqdisho waxa ka dhacayay shirkii daryeelka carruurta marka sidaas awgeed baan la rabin magaalada muqdisho dhexdeeda in lagu arko ilmo aradan iyo waxyaalaha iyo in isuusan dawladda suurad khaldan uga bixin marka maansad dheer oo aad cajiib ah buu tirinaya in yar baan ka soo qaadanaya waa curub abaaday waa laan cusayba oo ciira fuushay curdin weeye qaadhay waa cudur jir yeeshay waa baahi cagale waa ciil dadweyne cunug laga sameeyey caynkuu u eegyahay carab laguma koobo waa caata miiqan oo caday ka dhuuban naalaago naalaangaloola iyaduna miisaankaasi bay qaadanaysa waxaan waa meesha ugu dambaysan kusoo koobaya waxaa la dhahaa maqalay warlaay lagu warramay marka iyadana maqashaa loogu heesi jiray maqalay warlaay ma lagu warramay in cali la dilay oo cumar la dilay oo dhig qulqulay oo waran dhul dhigay saasaa la oran jiray waxaa ka mid ah sugaanta noocaas oo kale ah labada heesood labadaba waxay ahaayeen heesihii muusiga la saarayoo fanaanadii khadra daahir la oran jiray baa ku loqeyn jirtay marka mid waxa la oran jiray wareeriga haddii wad lagaaga dhigo ma og tahay waktiga lagama waabiye maqalay warlaay saas isu keenaysa wareeriga haddii wad lagaaga dhigo ma og tahay waktiga lama waabiye saasay marka iyaduna noocaasay ahayd wabiyey sitooy walwaalaye weydiiye oo xagee igu wadaan saas ahayd tan kale waxaa sameeyey abwaankii la oran jiray cabdiqaadir xirsi yamyam oo hees adcaan oo ah khadra daahir yani guud ahaan sida yani hal abuurkaas sheegaan waa heesaheeda heesta ugu caansan wey yaa garan kara waxaa la dhahaa dadka ururayo
isu tegay dhammaan ma ogan karaan mooye isaga ubax baan sidaa kula soo ordee madiga aqbali noocaas marka iyaduna waxa weeye maqalay warlaay ma lagu warrabay saasay ahayd intaasaan kusoo koobaya barnaamijka raalli ahaada dawafkudheerada masankiin salaamu calaykum muhiimka la sheegayay anigu kaliya farxad kama dhiman alxamdulilah farxad gaara oo ay tahay kulley magacaygu axmed cabdiraxmaan saalax haykal baan ku magac dheerahay waxaan idiin waday buug runtii aan ugu magac daray luulkii la dhex dhigay adduunka waa buuggan hortiina hayo oon hore ugu soo bandhigay gobollada togdheer iyo hargeysa ilaahay mahadiina aynu caawa u wada joogno ama habeen dambaba madashiisii saddexaad ama daafurkiisii saddexaad haddii ilaahay ka dhigo sharafay tahay iyo qiimo gaara iyo dareen gaara weliba caawa inaan garow joogo qofo dhinac buu caawa ka hadlay habluhu runtii inaga iyagoon gabi jirin bay caawa gabiyeen inamaduna way jawaabeen laakiinse halkeedii weli anigu maan arag dee markaan saa leeya waxaan uga jeedaa waxaan leeyahay geesigii haweynow gabdhihii dalkaygow gurdoonka gabanayo gurac lama ammaanine gidigiin gura mogaan markaan intaa leeyahay waxaan uga socdaa waxay tahay dee dhalinyaradu runtii marka qof walaba dhinac bay ka hadashay waxaan odhan lahaa ninkii odayga ahaa ee halkaa inamadu waxay dhahdeen si fiican ha lagu sacbiyo dee uu ka soo celiyey alxamdulilah waxaa ii sharafa caawa inaan walaal idila joogo laasacanood baan soo maray oo sidan oo kale hablu uga baraanburayaan oo gabayada tirinayaan madalo baan ka qayb galay qurux badan oo runtii aada ii soo jiidatay waana ii farxad caawa inaan intanoo dhalinyaro arko runtii buuggan insha allah habeen dambeyn gorfayn doonaa waxaad wax badan arki doontaan insha allah buug ka duwan bugaagtii hore haddii ilaahay ka dhigo waxaan ugu talagalay laasacanood habeenkan joogay waxaan idhi buugga habeenkan soo bandhigayo qof kacana lama arkayo qof qayliina lama arkayo waxaan arki doonaa idinkoo dhabanka saa wada haya isweydiinaya buuggan muxuu yahay haddii ilaahay ka dhigo faanin maayo laakiinse waxaan idiin sheegaya haddii ilaahay ka dhigo waxay tahay buuggan haddii ilaahay ka dhigo iyo luulkan wuxuu xambaarsan yahay inaan insha allah habeen dambe wada gorfayno haddii ilaahay ka dhigo waxaa ii sharafa mar labaad iyo mar saddexaadba sidii milgaha iyo maamuuska lahayd ee dhalinyarada maamuus ee madasheeda martigeliyey runtii aan u arko amase inay yihiin dhalinyaro aynu odhan karno isdhexgalkii ummadda soomaaliyeed iyo dhalinyaradu siday ahaan jireen bay fursad u tahay ama ay soo celin karayaan ayaan aada iyo aada ugu mahad celinaya maamuusa loo sacabiya baan leeyahay mar labaad dhalinyarada mahiigaan suugaanyahankaa ee runtii aadka farshaxanka iyo quruxda badan iyo siday caawa suugaantooda noo deeqsiiyeen aan arkayay waxaan leeyahay waxaan idinku martigelinayaa gobolkii togdheer halkan oo keliya ku koobnaan togdheer kaaliya baan idin leeyahay waan idin martigelinaya haddii ilaahay ka dhigo togdheer waxaad ugu tegi doontaan walow haddeer yaal xanuunsan ayaan jecelahay ilaahay inuu inagu simo awaankii ummadda soomaaliyeed hadraawiga jooga waan jecelahay idinkuna insha allah inaad u tagtaan soo booqataan madal qurux badan oo tan ka duwan insha allah inaynu samayno gobollada kale oo dhanna aynu gaadhsiino haddii ilaahay ka dhigo waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed ha noolaadaan meel walbay joogaanba haddii ilaahay ka dhigo mar labaad iyo mar saddexaadna aada iyo aad baan ku mahad celinayaa dhalinyaradii reer laasacaanood ee nuurudiin igala socdo ee sida qiimaha lahayd iyaguna laaska igu soo dhaweeyey baa iyadana farxad gaara iyo maamuus gaaray ah ma iloobi doono safarkaygiyaan ugu magac daray dal iyo dalbalasho halkan oo keliya kuma koobnaan doono haddii ilaahay ka dhigo safarka ay xiga insha allah laasacaanood iyo buurama dan inaan insha allah muqdisho gaara baan doonayaa markii koowaad iyo meel ayay tahay insha allah farxad gaara way ahayd markii koowaadaan calan soomaaliyeed ama calan buluugaan arko bay horta ii ahayd runtii dareen gooniya bay ahayd waan ku faraxsanahay inaan arko maanta waxaa dhacday sawiro xalay dhalinyaro qurux badan oo madashii xalay igu soo dhaweeyeen ay ku jirtay waayahay aad bay umahadsan tahay walaashii aamina qaranjoog sida gobonimada le waxay shaksiyaadka aada iyo aad kai soo dhaweeyey maanta aan yar kaftame waxaa sawiraan xalay wada galnay ninka halkaa fadhiya oo aan firayo inaad garanaysana yacquub la yidhahdo aan sawiro wada galnay dabeetana qolyaha maanta ay soo qaraacay hargeysa jooga dabeetana waxay dhahdaan nimaad ka baqayn sidii cabdimaalig in lagu xidho maxaa laygu xidhayaa waan maxaa laygu xidhayaa dalkaygii iyo dadkaygii baan u yimid mar labaad iyo mar saddexaad halkii cabdimaaligna waan taagan cabdimaalig aniga adeer baan u ahay
bulsho wanaagsan markan iyo marka badanna waan isugu iman doonaa haddii ilaahay ka dhigo waan bogaadinayaa runtii dhalinyaradu inay wala dhexgalka muujiyaan oo ilaaliyaan taa waxaan ku gaari karaynaa runtii xurmadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed lahayd baynu ku gaaraynaa dabcan qofku dareenkiisa lama gabado inuu la gabadana ma qurux badno Soomaaliya ha noolaato ha israacdan leeyahay maansada koobaad aan ka qayb qaadanayo walow ay aad u kooban yihiin waxa la dhahaa hasil dhigato ayaamo maansada labaad aan ka qayb qaadanayno waxa la dhahaa imagayo dabcan hasil dhigato ayaamo waa maansa aad u kooban oo geeraara laakiinse mowduucyo badan taabanaysa dabcan waxba ka hor dhici maayo maansadaas aan idin bilaabo suugaan isirkeed sabadii gurigeena gayigeena Soomaal saldhig bay u ahayd silsilooyin badaasa guba ay u sareyso siinla ay garab joogto hurguma ay daba socoto wiilashii kala saaree hadba dhinac u sifeeyay Soomaali bay ka dhasheen ana aan balyar saafo sawdkeed iyo luuqda suuradeeda saxee Soomaaliya dhageysta sabaan baan soo joognay gayigeena sidaadan gumaystuhu kala sooco magac gaarana siiyay dabcan waa markii koonfuriga waqooyi loo kala saaray oo Soomaaliland loo kala bixiyay sabaan baan soo joognay haliyay uu sarakacay oo sayidkii calmanaa iyo daraawiishi sifnaysay saanadiisa dagaal saadirkeena ajiibay ingiriisna sifaysay sabaan baan soo joognay dawlad saafi hagaagsan maamul saldhigeed saadirkeena siiyay sabaan baan soo joognay sanadaan soo joognay qarankeeni la saaray calankii silcado ummadiisa xariirtay Soomaalina kala baaday sanadaan soo joognay nabad aan san la saarin soodintii wadankeena gumaystuhu kala soodintii wadankeena subahigu uu iibshee gumaystuhu kala saaray soodintii wadankeena subahigu iibshee gumaystuhu kala uu ku saaciday kaafur anigoon sahwinaynin bal su'aali gaaraan yar sabeebo Soomaalina maqashiyo horta way iga su'aalayaa samaan xuma mooday nabadii seeray oo samadaana ku laalay horta way iga su'aalayaa samaan xuma mooday nabadii seeray oo samadaana ku laalay ma siyaasi xun oo sadka taagsanaya siyaasiyiintu ay iga raali noqdeen dabcan idinka ma aha ma siyaasi xun oo sadkiis raadsanaya masarkaan la cadhoodo aan la siinin xaqoodba masarkaan la cadhoodo aan la siinin xaqoodba madaxdii u sarreysiyo musuldaan buu ahaa balse feeya warkayga silacaan cidda keentay kalaamaan kaga seexdo ayaan saaka rabaa balan sii socdo oo socdaalkayga wateen dunidan waxa saaran saadirkayna abuuray sikin weeye ayaamo adigoon sahwinaynin si yar aan ku dhahee bal samaac weedhayda madaxdan sanifayso iyagoon sanad joogin sunta aad u walaaqday sogob aad ku tilmaantay adiga ku siloono sada baad raadinasaaye weedhaada soxo sawdkaaga hagaaji weedhaada soxo sawdkaaga hagaaji ruuxii samrayaa saamigii u qornaayay sadkiis wuu helayaaye hasal dhigato ayaamo saqiir aabbihi waaye soortiisa cunaa isagaa ku silcoonoo samhariiruu gelayaaye hasal dhigato ayaamo adigoon sarakicinoo seflaboodana yeelan saa dambiya saakuun sida taal dhowroo hasal dhigato ayaamo dabcan maansadii hasal dhigato ayaamo intaasay gaga eeg tahay maanso kaloo xaraaradeeda wadataa oo dabcan wiilal badan waxaa laga yaabaa inay ka cadhaysiiso gabdhaha qaarkoodna ay siifi u noqoto ayaan la wadaagayaa waxaa la dhahaa imagayo saanay ku bilaabanaysaa daaxay gabyaayadu
dhaaxay gabyaayadu intay golo ka heeseen hablaha kala gureeno dumar gurigalkoodiyo gaaridoodii socdeen aniguna gadaasaan ragga kaani gey karin haatan soo gudbinayaa gacalow inaadeer griib iyo xumaan iyo wejigadax ma yeelee weedhaydu guudkiyo geesyaani kaa marin niman tala ka golfayn karin gole ka fuulka hadalkiyo garta niqi karaynoo aftahan guuna aan noqon gacalkiyo xigaalkuna goortuu xifaaltamo niman tala golfayn karin garalaawey magayo goortaan xifaalsano niman gabayo ii tirin geeraaro gaariyo hadba gacalo igu sabin geeraaro gaariyo hadba gacalo igu sabin sarbeebaha gorfayn karin gundhigiyo ujeedada gabay kaan ku koobeyn xigmad laawey imagayo waxaan malaynayaa waxaan u baahan markaas sifiis wala noqonayaa dhaqankeenu guunka wuxuu galo wuxuu gudo gadihiis nimaan garan taga guri shisheeyo farajigu gardaadsho gawgiisa raaco dhaqan guuray magayo ninka guurka badane hadba golooladii kacda gogashii suula taal gacaladii ilaawe gabanadii sixoore aan garan xaqoodii guur badanay magayo hala raali noqdo macnaa gacalo hooyadii iyo gaaridii idahataba ninkii kala gudboonsaday hooyaday guhaadee geesiyaasha ila dhashay guudka nimaanan saaranin garabkooda joogayn yarad iyo gabaatiyo horweyn geela iga bixin gacal gooye imagayo nin ragaama goohee mana gabado weligii ninka gogosha ku hadhee gurigiisa joogee gurbadkiyo haweenkana aan gees u dhaafayn waa fulo godiise xashaanigay magayo ninkan garan dantiise guuluhu aqoonsiin cilmiguud mid gaarana diinteenna garanayn jaahilkaasii magayo rag waa cadhaysan yihiin oo sacabmee kan u malaynayaa xilihiisa gabankii gacaqaad u quuree giriib iyo xumaan iyo gacaladii guhaadshee gabayoox cidlaa iyo gegi bannaana kaga tegay xumaan aysan geyniyo gafaf dusha ka saaree gocashada aan daynayn caku godadla imagayo ninaan ii garaabayn goortaan u baahdana garabkay istaagayn gulahayga qiri karin gedahay i dhaafsiin nimin aani gaadhsiin waa garashalaawe walle kaasi imagayo gashigiyo gasiinkiyo kii ubadki gooye aan gardaadin inuhu guulihiisu siiyee gifti gaara uga dhigay waana caskadiise miyuu ani gooyaa
waa nacaskadiise miyuanii gooya mansadaydu guudkiyo webiga ulalkiisiyo gees yaanay ila marin aan soo gunaanado oo gorfeeya inankan guurkiisa raadiyey geesi sooma laabtaa haddana godobo aan gelin garashiyo aqoon dheer gacalkiyo xigaalkaba midan dhinacna goynayn danta guud ilaasho miskiinkan u gargaaro gelin aanan bixinoo geyigiisa joogo nugaal gooyaheediyo gowgii taleexiyo sanka goray ag joogo wirwidh iyo gar adag iyo sabadii garoowiyo gesihii buhoodliyo gabdago biilka jooga kaasaa igooyo wale aniigay karaa astaamaha ii gaarkaa gabankaan lahaynow ha isgaabin gacalow guurkaba warkiistaa haasaawo guuniyo inaan sheeko kaa guro goorna hayga filan ani bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad ba umahadsantahay shukri oo nala wadaagtay suugaantaas waxa weeyaan runtii dee waagi hore bilowga iyagii hore codka xoogaa iyo shacabka dee waa laga soo noqdaa moogta iyo qosolka markaas markii barnaamijyadu isbedbedelayaan haddii ilaha yidhahdo aad ba umahadsantihin dhammaantiin waa idin wada mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha waxaa marti sharaf badan baa noo joogta runtii aada noogu qaali ah waxaa halkaa iga muuqda wasaaradda warfaafinta hooyo xaliimo cali biyood aad iyo aad baa usoo dhaweyneynaa oo qaybta hidaha iyo dhaqanka hogaamisa caawana dumar badan oo gabyaayaala halkan ka heli doonta haddii ilaha yidhaahdo waayahay markii hore waxaa la yidhi suugaanta markii aanu hawlahan bilaabaynay baan ka wada yani reerkii reer mehigaan gabdho kuma jirin reer dadka deegaanka iyo cidda aan wada hadlaa waxay ohan jireen meesha gabdho kuma jiraan maxaa dhacay markaasaan waxaan ohan jiray oo gabdho suugan yahanah oo wax tiriya miyaa jooga bal haddee is keeneen waxaa la yidhi gabdho badan baa mataqaana hadda golaha ka mid ah oo ilaa 3-4 meelahaas ah raggii way qariyeen yani waxay noqdeen waxaan ka baqaynaa inayna kala diraan oo golahu si kale isu bedelo aad iyo aad ba umahadsantihiin barnaamijku wuu sii socon doonaa fari kama qodna waxaan doonayaa inaan u yeero marakan barnaamijka waxaa jira barnaamij kamid ah oo barnaamij keliya maaha dee inaan suugaan akrino caawada dul saaraarno laakiin barnaamijyo xiisale oo kaleeto oo muhiimadooda wata waxaa runtii halkan kusoo dhaweynayaa sadaam cali burgal waa aqoon-yahan waa suugaanyahan waa macalin waa siyaasi waa qoraa waa wax walba waxa weeyaan waxa uu nala wadaagi doonaa barnaamij uu si gaara noogu soo diyaariyey oo dhinacaasna uu gacmo dhuudhuuban yahay uu xeel dheer yahay waxa weeye barnaamij la yidhaahdo suugaanta in lagu sheekeeyo murti badan qofku markuu hadlayo in wax uu sheegayo lagala hadlo lagala haro yacni nin aan waxa la yidhi maahini murti ma sheegin marka sadaam cali baa kusoo dhawaanaya wariga dhammaantii sadam soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم إلهي مهدي وياني أنا جو عن كل الرجين أنت ماشي السجوتني دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام wadaad baa waxaa laga sheegay sheekh baan u leeyahay waxaa ii muuqanaya rag la qaban waayey dhib ma leh nin cali dirir la yidhaahdo baa inii soo socda bahashu waa kala ridan haahey barnaamijkan anigu aan ku qornahay waa 3 qaybood qayb ah waxaa la yidhahdaa maanso ama gabay ku mahmah qayb ah gabayada noqday maxaan ku idhahdaayey mahmahda qayb ah maxaan ku idhahdaay maanso ama gabay ku sheekayn waxaa jira sheekooyin faneed hidde iyo dhaqan ee suugaanta dadka ay curiyahay ay soo dhexgeliyaan marka
markaan dib u milicsano maansanyahanada soomaaliyeed qaarkood farshaxanimada awgeed waxay iidaan uga dhigaan suugaanta mahmahyo sheeko faneed iyo in wixii la midka ah ay ku qurxiyaan dadka ku xeel dheer arrimaha suugaantahay waxay ku tilmaamaan inay suugaantu la mid tahay kebaddu waxay leedahay xardha waa la xardhaa waa la qurxiyaa waxa weeyaan marka ishu qabato aminkaba kama jeesmato sidaas si la mid ah bay tahay suugaanta teeda miraha iyo mucdalihi ay noqotaa waxaan rabaa marka inaan ku bilaabo maansada ama gabayada maxaan ku rahdayay mahmahyuhu inta badan ku jiraan waxaan rabaa marka inaan gabayga ama maansada akhriyo inay weydiiyo mahmahda ku jirta inunku aad soo dhirisaan haddaad garan weydaan in hadda ceeb maha oo caawa baad ka faa'iidaysanaysaan insha allahu waxaan isku dayayaa god walba ee suugaanta ka mida inaan xaqiisa mariyo ku luuqeeyo yani sarsarkii hashi labada geel soofku wada raacday ee bahalku seeraha ku dilay kama soo kaysaane waayahay waxaan rabaa mahmah baa ku jirta labada meeris ama labada tudcood waxaan rabaa inaan kale ku daro jiifto yar oo sidaas oo kale iyana ay ku jirto isla mahmahda weli mahmahda lama sheegin adiguna garaadlaay noqotaya gedeedii hasha labada geel jecel midna gaari weyde hadba gees u carartee laba gebi dhexboodii waraabuhu ku gowracay mahmahda la iska rabaa waayahay de hal baad meesha ka maqasheen baan u malaynayaa labada goorta mahmahdu waxa weeye hal laba geel jecel dhexdooda waraabe ku dila ama ku cunaa waa sarbeebo waxa weeyaan waxa weeye lega jecli xaydha jecli waxa la yidhaahdo baa laga wadaa inuusan qofku labada meelood hadda meel u go-baa muhiima waa dadka inta badan dabeecadahay leeyihin dadka aan go-aanka ka go-in ayaa la yidhahda ayaa dabeecadaha sumadaha iskale waxaan rabaa inaan balgabay kale oo ilaahay ha u naxariistay heestaa hore waxaan filay inuu hadraawi lahaa hanuuniyana uu qaaday waxaan rabaa gabaygan waxaa iska leh cabdullaahi macalin doodaan isagana waxaa ku jidha mahmaah waxaan rabaa marka bal in mahmaahdaas la fahmo waana ninka ugu sita xagga gabayku mahmaaha inta la hayo qarnigii 19aad haalo burrada ee aadka ugu xeldheer isaga iyo qamaal bunxalin la yidhaahdo wuxuu yidhi markii balaqa awrkii hoggaan lagu makaabeeyo kan xiriirka la isugu mare daba mushaaxaya tallaabadii iyo miidaanka socod waysmatalayaan waxaa la iska rabaa haddaba mahmahba halkaa ku jirtee beeyo mahmahdaasi waa tuma haye may halkaa ka sheeg ha maasha allah u sabciya gabadha يعني mahmahda ku jidha waxa way awrba awrka ka horeeyu socodkiisa ama sanqaadkiisa leeyahay ama dhahaba yeeshaa dhaha oo uu yeelanaya aan intaa isticmaalno faanole fari kama qodna mahmahda saddexaad waa mahma cajiiba oo waxa weeyaan run ahaantii soo jiisada leh waana la kala ridaya wuxuu yidhi waa qamaan bulxan ilaahay haw raxmadee dumarkaas sabaalo iyo been sahal la taabtaaye oo lagu siraa waxaan ku siin soobiriyo liigan waryaahe halkaa mahmaa cajiiba ku jirta waxaan rabaa raggu inay sheegaan haye ninka hahay waxa weeyaane mahmahda sabciyo waxa weeyaan dumar been baa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa waxaa cajiib noqotay waayadan dambe gabdhaha 21aad jooga qarniga 21aad bahashu way fahmeen mahmahdan mahmaha aan ka dhicin bay keeneen waxay dhaheen ma taqaanin rag make up baa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa soo noqda gabaygani waa inta suugaanta akhrinayay waa gabayga igu cajiibsanaa maxaa yeelay isaga dhanba waa 8 meeris haddana 4 mahmahyood baa ku jirta yacni fiiriya dadka suugaanta ilaahay oo xikmadda u siiyey say u kala duwan yihiin meeris kastaahi wuxuu sidaa mahmah gaarkeed u taagan
afar ka mid ah labada saddexda u dambeeya ayaa waxay tahay maahmaah saddexley ah oo sida yani waa cajiib yaa iska leh waxaa iska leh cabdullaahi macalin loodan ilaahay naxariiste waxaan marka dareemi karnaa inuu yahay ninka xagga suugaanta farshaxanimadeeda maxaan ku idhahday soo gelinta suugaanta ama gabayga weliba mahmaahaya aan inii bilaabo haddaba dhagax taabashiyo tuujisiyo inaad tanta umayso saddexdaa midkaad ula tagtaa waa isugu taageen nin wixii la tuurlihi midbu nin wixii la toosani midbuu tuur la leeyahay waanada abuurkaa tirto oo ka tabaroonay qofkaan tirisan maalkiisa waa inuu tisoobaaye maradiisa kaan tolan dhaqsay uga tifmaysaaye kan tashi lan waaya ma dhalan suuta jireen waxaan rabaa haddaba afarta mahmahayada ku jirta inaan si degdega anigu markan u sheego de labadii hore ad iga qaadateen cadaalad maaha haahay waxa weeyaan meriska ugu horeeya mahmada ku jirta waxay dhagax taabasho iyo tuujis waa isagu mid meriska labaad waxaa ku jirta xaajo nin la toosan nin la tuur leh baa nin la tuur leh waa meriska labaad meriska saddexaad waxaa ku jirta waano iyo abuur baa horeysay oo waxa weeye waa meriska saddexaad saddexda merista u dhamaysa waxaa ku jirta mahmahda ah rag saddex baa u liita matabcade matashiiste iyo matoshe waa mahmahda saddexda merista dambaysa u dambaysa wareedha ilaahay ha u naxariisto dhaha ninkaas ilaahay ha u naxariisto waxa weeyaane intaas haddaan kaga soo gudubno gabayadii mahmahyuhu ku jireen waxaaba jiraba hadda ininku kuwa aad mahmah u haysataan laakiin gabayaa war soo cajiib maha ininku mahmah baa moodaysaan laakiin waan dul marayaa fiiriya waxaa ka dhaca berriba halahaaso nin raga baqaski waaceede lixalkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada mandhow asxaan lagama talo eed haddaad faliye arsiga dibooday maxaa loo dekani waaye dugsi mala qabyaaladii waxay dumiso mooyaane ciilow shalay talaaxumaan cudurka weyn musuq maasuq soomaali waa meheradeedii iyo muslimkuma cabid samawallan madaxa kaa goynay rarac cadaalad waayey sidii cawsha kala yaacye maana midiyo lay qarshaa laygu qalin doone mintid farayar mirihii bataa kama macayshaane cagtii joogsan wayda marbay ceeb la kulantaay warheede waxaan aad arkaysaan in hadde fiiriya intaa waa isticmaashaan cagtii joogsan wada marba ceeb nin baad isqabanaysaa markaas le wallahi billahi cagtii joogsan wada marba ceeb la kulanta waa gabay halka waxay mar baa laga hadlaya musuq Soomaali musuq maasuq waa meheradeedii yani waxaan oo dhan waa gabayo tudco kamid oo lays noqday waxayna noqdeen hadda mahmaho waxa weeyaan dadku la wada isticmaalo waxaa jira gabay ku tusaaleyn oo cajiib yana ah in gabayga iyadoo mahmahna loo adeegsado tusaalena ay gasho waxaan ka soo qaadanayaa qamaan bulxan ayaan filayaa guba maanse cajiib ahayd gabay ku jidhay meerisyo dhowra uu leeyahay baadidaa nin baa kulay daydaya daalna ka badan ee aan doonihayn inaad heshana daayina bidkaayee dadkuna moodin dul wada dhashoon wax u dahsoonayn ee dallana mala ha aakhiro haddii loo kitaab daya hadda gabar baa anoo kale magaceedi shukri baan imaan waxa inaad inay ka doonayso ana aqaan de ma rabo inay irankaas hesho boogta kan kan waa xun yahay reerkiisa naqaana kan walakin ka war ninka waa fiican no marka waxbaan la doonayaa haddana uurkayga ma jirto weeyaane waa taas nin lixdan laqa la yidhaahdo ayaa hadda kahor waxaa dhacday wuu dhintay ilaahay naxariiste islaantiisii baa waxaa cunay baa waxaa xoolihii ka laaya bahal marka galab iyadoo cabanaysa nin sheekho oo wuxuu ahaa qaari cajiibana wuu ahaa marka wuxuu rabay inuu marka uu niyadda u dhiso wax tusaaleeyo marka wuxuu yidhi shimbiruhu bacaysa ma male fiidkii soociyahe caways culus geelahay suma soo dubaan goor cawaysi mahe ciiddaasna ka badan oo rabaacaysha doos qaba catowga igada yaadan noqon ehl cadaabeed yani wuxuu ka waday wareedha haddaan wax weyno aan xoolaha in beerno ilaahay subxaanahu watacaala isagaa irsaaqada inoo furayahe iska daa dadka dilka iyo intaan dhegaysanaya suugaanta kusoo aroorta dhowr meeris ayaa igula yaabadnaa yacni nin la yidhahdo aadan afkalahay ayaa wuxuu yidhi dhirtaa badatay ruuxii wax dhimay waa ka dheeryahay oo shimbirow dhawaaqo waxbow dhowla weligiis
يعني wuxuu tusay ninka wax dilaya يعني dhirta waa ka dheer wuxuu meel walba waa laga arkaa warbalaayada waa lagu jeeda xagaa laga fiirinaya wax baa u sanqarayo inta waa iska heriyeysan iyo cabsi baa iskaga jida waan yaabay labada meeris ninkaas dareenka iyo maaragtay ugu soo koobay haddaan marka intaa kaga gudubno maasku ma tusaaleyn iyo wixii la mid ah aan u gudubno maxaan ku yiraahdaayay maasku sheekayn waa sheeko cajiiba waxa la yiri xiid habar dugaad lama socdo oo waxa la yiri hilib ma cuno oo waxa la yiri habeen ma seexdo anigu waan arkayo geedkaasi horta keligiis ba inta meel mulug leh waxa weeyaan isagoo meel had wax ku cunto ku dhacaysa joogana ma arkin dadkuna lama soo sheegin kaaga dalanta haddaad habeenkii guurayso meel kastoo aad ma dhaw waa kaaga kacaya waa soo jeeda bahalakan waa hurdaan isqaamay waxa la yiraahdaa sababtu maxay tahay shimbiraha kale يعني waxa la yaabaysaa markaad inta u fiirsatid maxay tahay sababtu waxa la yiri hadda ka hor baa waxa duulay habar dugaag waxa la doonay in la soo helo xoolo la cuno ama la soo dhaco abaanduulo oo ahaa marka xiid ama xiis hadba saad u taqaaniin xoolo la soo dhacay waa la soo guuleystay markii guushii laga soo laabtay buu wuxuu yiri waa daalay abaanduulo haaye waa u seexday ninkii tugaa buu yiri tuku la dardaarmo tukow hashaas haloo qalo waxa weeyaan habar dugaag si hanaan wanaagsan u qal oo u qaybi waxa weeyaan markaad qaybta dhamayso aad qaybta u dhamaysanaytoos ninkii tuka ahaa sidii ma yeelin dantiisu ka raacday hilibkii uu qaybiyay waxa uu san isagina waa ilaaw hadhowdii buu kacay bas hilibkii waa laga qaybiyay waa laga qadiyay waa xanaaqay garaa la tagay geed baa la tagay waa nimankii waa loo dooday wuxuu yiri war ninkii tuka ahaa qiil buu helay xirniyo aniga waad taqaan tuka la yiraahdaa horta waxaan la mid ahay halac dheere weligay wax ma habayn marka niyo aniga waxaad iga eedeynaysaa adigoo ogtaas waa khalad habar dugaagna waxa la yiri waa runtiis oo waad ka qaldan tahay maalintaas uu xanaaqay baa la yiri habar dugaag gees uga bax waxaan rabnaa haddaba bal suugaanta ku timi inaanu inta yar akhrisano habar dugaag waxa la yiraahdaa wax kasta ee aan ahayn markii laga soo reebo xoolaha iyo dadka waa shimbiraha waa dhurwaayada waa ixaasida waxa kale oo ka soo hara weeyaan waxaan maleeyaa habar dugaagtaas la fahmi waayo marka hambabar waa maaso uu leeyahay ninka la yiraahdo hadraawi bay sheekadaas ku jidhay waxaan rabaa marka sidoo naxliga iyo laxanka ninkaas uu sheekadaas saaray abwaankaas ilaahay dambigiisa dhaafi waa nool yahay inay aad u fiirsataan oo dhageysataan wuxuu yiri habkii xidin xiidka dugaag huwantiisa horyaalka ahaaye markii hanka koobka la soo helay guusha laftii la haleelay tuku yiri hooyday hashan qalay saami hagaagna u qaybi hadhowna itoos tukow hayadaadu waxbay huwanayda dantiisa ka haybi qorshihiigiisa halkii tala joogtay kasii wada hawsha ninkiina hilmaayi waa wiilow saqdii dhexe hawda ninkii hurday toosiya hareeraha eegiyey raqdii ku hungoowiyey hanqaar warwareega hankaab jaljalleeca haqdii samri waaye tuku hanfariirka waldaysi ku haad waa meesha iska qabsadeen oo dagaal ka dhacay markuu kacay gar la isku hankaabsay hamuun goroyaale ninkii halac dheere wuxuu yiri hooy war intaan hana qaaday hadeeriyo caawe heedhe weligayba inaanan hambaynin horaad u ogeyde maxaad igu hiiftay yani inaan anagu halac dheer ahay nin hongori badan ahay aan waxba weligayba hambayn waad ogeyda sheekow war maxaad igu xirantay tale xume ninkii marka wuxuu yiri xiidahaa ninkayse ka hoostay marbay hawireene kasoo kabay haarta bahaysiga haada hilbaha cunidiisa habeengama iisa inaanu hawaysan ayuu han fogaaday halkiis kaga dhaartay halkiibu saddex wallaahi ku maday inuusan habar dugaag dambe la soconayn inuusan habeen seexan doonin inuusan hilib cuni doonin war waa nin xiniyo leh waa kaas bal carina ku ka dhaartay sheekadani waa sheekadii labaad oo gabay ku sheekaynta ilaahay ha u raxmadee ninkii xuseen maxamuud faarax yaa yaqaan horta xuseen maxamuud faarax xuseen maxamuud faarax waa nin gabiya caana oo aad wada taqaanin war yaa garanaya xuseen maxamuud faarax waa xuseen dhiqle weeye xuseen dhiqle ma la garanaya xuseen dhiqle de waa kaas la garan waayo jacayl baa laga gabiya xoogaa waxay isdhahayaan war ninka kan boyow waa xoogaa malaha de jacaylka dadku waana ka gabadaan markay keligood yihiinna kama gabadaanin
marka haddaan runta idiin sheego dee waxaad taqaaniin toddobadii carabta ahaa ee la ohan jiray macallaqaat sawca marka masaajidada lagu mariyaa ibnu qays iyo waad aragteen oo isagoo ka sheekaynaya de gabdho carab ahoo midhaa kuweena ka daran ayaa aragtaanin marka ragga masaajidada kitaabada ku marsadan waxay u badan yihiin dhalinyaro marka waxaad aragtaa isagoo laga sheekaynayo gabayadii ibnu qays dhalinyaradiina ay meel kale ka shaxayaanin culimmadana waxay tidhahdaa carabigaa lagu bartaa marka dhib ma leh teenana soomaaliya aan ku baranana intaa kadib waxaan rabaa inaan laba maasoo yaryar inaadan la wadaago midda hore waxaa la yidhahdaa dalxiis runtii waxay huwan tahay xoogaa siyaasad baa ku jirta mar dhexaan waxaan is idhi warniyow dhulka kan kala googo-aan oo soomaaliyeed yaa ku dalxiisa markaasaan waxaan is idhi dhulka haddaad ku dalxiisatid kuma habboona keligaa inaad ku dalxiiside waa inaad gabar kaxaysaa marka gabadha garow waan ka kaxeeyey taleexdaan sii mariyey daalaan sii mariyey waxaan geeyey saylac kadib dirir dhabaan geeyey xaggaasaan mariyey harar baan soo mariyeyo doolow baan soo geliyey kismaayaan geeyey xawar baan soo mariyey deexdaasaan la soo wareejiyey ayl bay maraysaa hadda waxna weli waa ka dhimaya markaan idinla wadaagaya waxay leedahay deegaankii garow iyo dooxadii nugaaleed yaa daadah kaa dhaha waxaa dulan ducaysaba dalsankii taleex iyo xaruntii darwiishkoo daarihii ku yaaliin yaa deris la noqotaa dabka yaad wadaagtaan dalka meesha ugu dheer yaa buurtii daalood daruuruhu dul marayaan darfahana ka joogaan dayuuxuna dullaalo dabaylaha ka dhacayaa saxan saxadda wele tahay yaa dirinta kuu dhiga daltabyada ku goysaa geeska afrikaan dega halka ugu daaweyn iyo taariikhda duugga ah halka loogu dawgalay culummada dohdoodii halkii diinta lagu furay taleex yaa dekaysaa adigoon dareen qabin daalkana ku bi'isaa adigoon dareen qabin daalkana ku bi'isaa adigoon dareen qabin daalkaba ku bi'isaa wax yar iga raalli ahaada adigoon dareen qabin daalkana ku bi'isaa adigoon dareen qabin daalkana ku bi'isaa adigoon dareen qabin daalkana ku bi'isaa doog iyo wax sii dheer yaan kaaga diga rogin marka dirir sagaalaad dababaati sii yahay yaa dabaysha kuu wada ilaa tan iyo dirir dhabo ayadoon la diidayn harar yaa dawaaftaa deganaan u socotaa tan iyo aagii doolow yaa dadab u guurtaa yaa dayr halaalood doogii horraantiis luuq darinta kuu dhiga yaa baarqab darabliyo wan laguu dilaacshaa ka durduurataa dhay tan iyo dayra habisyada yaan daadah kaa odhan dambarsaba gadaashii marka dooggu gamashiyo yaa daacad ku wada duleedkii kismaayiyo webigii daryeelkiyo jubboo labada daan tegay misna deegin weligii goobweyn dusheediyo halka uu bad kaga daro yaa dirinta kuu dhiga muddo laba da-oodiyo yaan dayra kaa rarin ayadoon digyeerayn daanno laysu geynayn qofna aan qof dilahayn bilaash laysu dooxayn dalku kala wanaagsane yaa daartii curubiyo degalkii jasiiraad iyo deeqdii liidaad damaashaadku geeyo baryo kula dalxiistaa isagoon degdegahayn tillaabada durkinahayn yaa dacalka kaa xiga in yar daraf horeeyo eegmada ku daawada dalxiis lagama daalee yaa deexda kuu dhiga badda daa'imkeen dhigay dalkeennana u gaarka ah yaa duhurba meel dega dal waxaa taxaashtaba yaa daarihii ay degal kaaga yeeloo misna daarku seexine aqal laba daryaalaah duleedkiisu rays yahay durdurkii agtiisii dallaalnimo u joogtaa yaanda ay ku taabane xoogaa mar baan waxaa tidhi niw amaa intaa dalxiiska ku jirto qofs kaa weynaata marka waxaa dee dawana lama soo saarin gowga lagula diriro marka waxaan idhi yaanda ay ku taabane dawo weli dahsooniyay wax daqowga kaa jira yaa dahaba ku hela anihii wax daqowga kaa ilaaliya dee raggaas axmed kilwe yaa noo qaabilsan dhinacaaso bal waa laga sugayaa wax daqowga qoftaa lagaga ilaaliyo intaa kadib waxaa jirta maase kaleo taa hore dalxiis baa la dhahay ujeeddo kaley huwantahay xoogaa waxbaa ku hoos jira jacaylna waa tahay maado kaleo iyada waxaa jirta maase kaleo caadi ugu dhacday oo la yidhaahdo faramagaadho maasada tan ayaan dhexdaasay colatay
aniga nin saaxiibkay wada soconnaa waxaanu aragnay gabar aad u qiimo badan oo meel wadaa waxay sidataa 2 bicood oo aad u culculus oo adeega marka gabadhii baan waxaa tii niyo gabadha bacaha ma la qaadaan xoogaa maadaama isku dhinac u socotaanin ninkii saaxiibkay ahaa waliba iga soo horeeyay wuxuu yiri walaal ma kula qaadnaa alaabta markaasay istaagtay bacahii dhigta kadib waxa u garanay ila qaada aniga markii hor maray oo mid baan qaaday markaasuu tii kale kama qabana waa iska dhaqaaqay ninka haddana waa iga leexday oo gabadhii waa iga tagay marka waxaan sii ninku waxbuu ku weydiinayaa bal gabadha la hadal gabadhii aan ku yiri ii warano magacaaga soo tiri adiga waa ku garanayaa aniga heblaaya la yiraahdaa marka halkaas aad tixyar ka curatay tixda farmagaadha la farmagaadhadu waxa weeye inaad wax sugu weydid degdeg kugu dhaco waxaad sugu weydido aad intaad wax u jeclaatid marka waxa iri gooray fiidadow tahay fallaaruhu carceerteen fiidkuna ka qaabilay dhanka bariya laga filo furdug ma isku soo niri sidaan feejignaan qabay fiirada ma kula helay misna foolkii ma u filay inaad tahay xuural cayn fardowso faraskii bureeqaad fuulaan ku joogto fanka hore la saaro ifka faalalayso keligeed fagaag iyo fadankaba ka maraso weli meel xun lagu furin faca maanta joogana adigaa fagaari iyo fadhi iyo istaag iyo foolkaba ku reebaye walle reer ku filanay weylaalis faraqliyo faylaki mariin loo baarkuna u firan yahay firshadii habeennimo ama fiidadowgii kaad farax la joogto kula farac ciyaartaa ragga kale farsamo dheer iyo fiiro gooniya faca maanta joogana adigaa fagaariyo fadhi iyo istaag iyo foolkaba ku reebaye walle reer ku filanay masallaha la fidiyo weylaalis faraq loo baarkuna u firan yahay firshadii habeennimo ama fiidadowgii kaad farax la joogto kula farac ciyaartaa ragga kale farsamo dheer iyo fiiro gooni qoftaasi waxaad arkaysaa inaysan nin hawl yar u baahnay farow gooni daaqiyo geenyo aan la farabarin weli aan la foodgoyn ninna fiirsan maayee facba waa faciise filka laba isleeg baa hadday nololifaydiyo farshaxan quruxsan leedahay filsanay wadaagee feermaysu raacnaa inkastaan fudayd iyo laguu helin si fawdaa misna fiiro dheer tahay foogaala arag tahay fadhi lagula yeeshiyo fursad lagula qaataa walla waa fitrii khayr mara faylo dheer iyo faashoon ma xirato xijaab kama fogaato faadumo ma baalmarin kamana faanti diintee tii layna faray iyo furqaan baad ku joogtaa maahmaa fac weyn iyo sidii layna soo faray ninkii kadinka foofsaday farow iyo fagaad dhaqay inta bahal wax feentiyo fool carar ka celin jiray harweyn feerlamoodliyo baramboori weli furan goortuu ku fara go-ay fayluhu dhammaadeen misna yidhi colfeenyow afartaadan foorara labada ay fiirshaa faayaha ku dhaamee maxaan kugu falaayaa rag ma kala fogaadee fakar baan wadaagnaa waa maamaadi ahaydee nin laba soo fiirinaya ujeeda afar hoos ujeeda uma tiro macnihi ninku si kasta u geel u dhaqo oo si kasta u geel madiya u dhaqo haddana waa gabadh buu ka bixinayaa sidii geed fufoo kale arri kaagan faalalay fallaaraha kalgacalka iyo filan waagaan igu dhacay waa faramagaadhee ma igu fiirsanaysaa mise waad furaysaa ifurdaaminaysaa fal aan laabta sii jirin faruhu waxyeelay raxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddaan salaantaa ka soo gudbo waqtiga gaaban aawadiis waxaan caawa rabaa inaan idinla wadaago halkaan idinkana soo jeediyo gabay gabaygaasina sababta uu ka yimid waxa ay ahayd dee mar kastoo suugaan la sameynayo sabab baa keentay dabcan iskama timaado suugaantu marka gabaygaas sababta uu ka yimid waxay ahayd waxa weeyaan gabaygu waxa uu ka hadlayaa haddaynu Soomaali nahay inagu waxyaalaha badan ee ina ku soo kordhay oo aynu la yaabanahay waayeelkeennuna ay la anfiriirsan yihiin laakiin inagu haddaynu dhalinyaro nahay badanka iska qabatinay ama aynu iska wada aragnay oo aynaanu arag wax dhibaato ah laakiin waayeelka iyo dadkii horeba maanta ay
magaranaysaa la yaabi lahaayeen waayeelkuna iminkadaasba la yaaban yihiin gabaygu waxa uu ku yimid galab galbaha ka mid a anoo kusii socday jaamacadda aan dhigto oo b s u oo toga ka tallaabaya waxaa dhacday waxaan arkay markay jirtay bay ahayd abaartii hadda ba-nayd oo dadka aafaysay oo xoolaheeni dhamaysay marka waxaan arkay lo waxay ku jirtaa toga joogta oo aada u cayilan oo magaranaysa aada u shilis bay ahayd marka waxaan la yaaba waxaan isir war abaar baaba jirto waatan xoolihii ma dhayane xaggey lo atani maxaa baasoo lagu naaxiya xaggey daaqda dabeetooda nin ila socda waan ku eri war nin lo atani maxay ahaydoo wuxuu yihi warba ma hayside lo atan wayba irmaan tahay oo caanaheeda magaalada lagu gadaa war lo atan geeliiba meesha abaaratan geeliiba dhamaysay iyo araygii adeero lo-da caanaheedii la gadaa dee wax soconaya waxay ila noqotay wax aan la yaab dabeeto waxyaalo kaleetaba iyana dee iska soo baxay oo adduunyadatan aan sheegayo aanu la yaabanahay waxaa iga soo baxay waxyaala badan inaan isu gegeeyo oo aan markaa gabay ka sameeyo gabaygaasna dhammaanteen hadda waxaa laga yaaba markaan gabayga tiriyo inaad istirahdaan ninku wuxuu sheegayo waaba ma waxaasuu sheegay laakiinse waxaan ka qiyaasay qof maanta joogi lahaa qarnigii 19aad oo kaleeto talo muxuu oran lahaa hadduu waxaan oo kaleeto arki lahaa waa kanoo furrinkii baa batay ma garanaysaa waa furrinkii waa batay roobkii waa iska baraka yaraaday dil waa ku ran yahay waa taas adduunyada kaleeto waxaa laga doodayaa raggu ha isguursado waxyaalo badan baa isu kay buuxiyey marka dabeet halkaas baan gabay ka sameeyey gabayga waxaa la yidhaahdaa yaa indhaha saaray waxa macnaha aan ka turjumay ama aan isirinin qarnigii 19aad raggii noolaan lahaa hadday arki lahaayeen talow maxay oran lahaayeen halkaasaan ka qiyaasay marka gabay noocaas weeye yaa indhaha saaray baa la yidhaahdaa marka waxyaalo badan buu leeyahay macnaha aanu la yaabanahay uu ka hadlaya waxaan aada u cudurdaaranaya inaanan aada u luuq fiicnayn laakiinse waxaan ku khasbanahay inaan waafajiyo xeerka golaha mahigaan kaasoo ah in lagu luuqeeyo suugaanta gabaygaan bilaabaya bismi illahi raxmaan raxiim hoyaalayey 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 hoye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey 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 ho indhaweydba sugan warkeed waan ka saahidaye ma sifaynin maansooyinkan sanac ku ahaaye sawdna kuma akhriyin gabayadan si qadan jiraye seri baan ka maray waayadan inaa siciidowe sinjaarkiisba wataa niciyo sabala olkiise saabkabaa ka jaray inaan mar kale dib u sameeyaaye sabab liise kuma daynin iyo sahal walaalowe soobir weliba goortuu tirshaan saanta yaraye oo aan siraadka uga degay isaga garin jaane sayn cadaab waaniyo duqbaa calan u saaraaye in saraaxad loo meeriyuu sana ku yeeshaaye sabool hadyay gortay dhallaan si xun u qaadeene ansee suruuqda iguma baxdiyo hadaalan saafnayne salaafna uma baraaniyo inaan surin la jiraaye maalintuu sidkii gaarobaan sayriya gabaye salaan iyo kolkaan sidii afyareesinka ka higaadsho murti soocan waa marin jiriyo suxubi maansaye aan suuradiyo wataan in badan soomanka ahaaye adduunyadu samaan kuma jirto sebenba waa cayne subaxyuunba waxaad maqal waraad selel ka qaadaye 15 wada sirgaxan yaa indhaha saar gudsamaaday saylaan onkoday gibi loo saymeeyey oo buursari iyo dooxa siman karar ku saameelay oo aan sifaar laacinayn yaa indhaha saar jilaal sulfaaday xoolahoo weyd la soocon waayey sagan daaqa geeliyo abaar aribasaan qaaday
sayndheer la aado irmaanya indhaha saar sangeedixiida soldaaqayoo sarara weyn yeeshay oon sabeen xumaad iyo abaar weli uu soo joogin oo baqalku sigada ku rogaya indhaha saar 18 gabar jirtiyo waxaan sidaa dhaamin oon sabaadka reeraha ka tegin socodna meel aadin oo 9 nin ay soo furaya indhaha saar soddon iyo wax dheer wiil jiro sawjad laga yeelay oo saygayaanihii qabo cawda kula seexdo oo ay sumciyo sharaf la tahay indhaha saar saqiir gabaana sanqaad dashiyo sabi aan qaangaarin oon surin kan dhow gaari karin socod hadduu maago oo dayn sibraha looga xiraya indhaha saar nin 9 geeliyo wax dheer xera ku soo hooyey oo ramag saqdi maalayo igar salaaxaya misna gaajo sacabada la dhiganya indhaha saar saraakiil rag sheeganahay iyo saajin wada miiran oo aad garaadada ku siman salalka qaadaysid oon saraakac weligood la oranya indhaha saar meelaan dowlad saxa laga samayn tiro salaasiina oo inay saldhigato marqura sugantoo loo diiday oo aan samaanteed la rabinya indhaha saar sokeeyiyo qaraabiyo dad wada toliyo saaxiiba oo aan xadkala soocine sere wada yaalla oon soofka wada daaqsan karin yaa indhaha saar dumarkoo habeenkii socdo suuqa tamashleeya oo leylka dheexe soo dhiciyo sulus markay gaadho ragna seexdu fiidkii hurdada yaa indhaha saar dumarkoo habeenkii socdo suuqa tamashleeya oo leylka dheexe soo dhiciyo sulus markay gaadho ragna seexdu fiidkii hurdada yaa indhaha saar sidka quruxda eebbe uma simin subanta haweene sidka quruxda eebbe uma simin subanta haweene qaar sugul madow lagu ogaa midab sawaaxiilka oo wadaa sunaari isu rogaya indhaha saar gabdho waa diideen saciim weliya sheekh saalaxoo camaloo suusuuban saciim weliya sheekh saalaxoo camaloo suusuuban oo aan sunnaha qaar ka tegin faralka sii daayey oy gaalka saaxiib yihiin yaa indhaha saar dadku way isku seegaa waqiisoon furiyo ciide inuu 2 subxood kala afuro waa wax soo jiray 3 meel salaad laga tukaday yaa indhaha saar sugan yahanin sheegtiyo abwaan gabayga saafsaafa oo ay murtidu saabka iyo santa kaaga talo oon meeris qura sixi karan yaa indhaha saar oon meeris qura sixi karan yaa indhaha saar